السلام عليكم. وحالي دها آمنة دعس وحان برتهي دريزن وانا كوغوليستي maanta aad baan u faraxsanahay waan bogay waxaan ku faraxsanahay horumarka aan gaaron sidaan u bogay shaqadeeda aan ooga soo u barte marka aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adda ka dambeysay inaan wax barto aad bay u mahadsan yihiin waxaan nahay arday soo qalin jabisay aad farxadeeda lama soo koobi karo waxaana ka codsanayaa hay'adda maadaama ay na bartay wax oon horumar gaarnay waxaan rabnaa haddana inay na siiso meel aan wax ku baranno meel aan wax ku qabsanno waxaan rabnaa wax aan meel ma haysano aan ku shaqaysano ma haysano magaalada Dadaabna waxay ku xuntahay markay la helo guryo oo dawladda ay keento oo la rabo in lagu ganaco wax lagu barto ama wax lagu qabsado anagana ma siinaa way noo diidayaan marka waxaan ka codsanaynaa meel wax aan ku baranno inay nala siiyo meel aan wax ku qabsanno wixii aad baratay faa'iidadeedu waxa waay inaan wax qabato horumar ay gaarto marka wixii aan soo bartay waxaan ka codsanayaa hay'adda maanta garabka igu siisay inaan soo qalin jabiyo inay haddana i siiso meel aan ku ganacsado aan wax ku baro dadka ku baro aan timaha u hagaajiyo wax walba u sameey wajiga luwahan dhaqna madaxa wax walba u sameeyna wixii oo dhan waxaan rabaa inay haddana garabna siiso meel ay noo raadiyaan marba hada ardaynahay teeda kale aad baan u faraxsanahay stiil weli waxaan rabaa inaan wax sii barto waxyaalo badan meesha naloo keeno oo la baranaya waxaana rabaa inaan ku sii darsado waxbarashada oo weli wato oo wax badan inaan aqoonsadaan u baahanahay waana mahadsantihiin waxaana niga codsanaynaa wixii aan wax ku qabsan lahayn inaan noo siisiin alaabtii hadda soo wax ma hayaa dreesnaan barte waxaan u baahanahay alaab aan meel ku furto oo ku shaqaysto oo dadkana aan ku soo dhaweey aan tusiyo inaan wax soo barte marka waxaan ka codsanayaa hay'adda alaabna inayna siiso meel aan wax ku qabsano qolalna ay noo kireeyaan ayna siiyaan dawladda way keentay guryaha dad kala iska qaataan mukaanba iska degta wax aqli oo lagu qabto ma laho anagana waxbarashada in gurigan la tagna waa iska fariisana waxbana nooma tarayso waxaan inaga codsanayaa tilaabo in la qaado oo guryaha meelna laga siiyo magaalada Dadaab.